السلام عليكم سؤال بقولات السلام عليكم شيخ وحنا هينين دنبي وهري وقالي لولسن قصدي يدنا واسدا سندك وحو أها كن سجال بقول سجاشين لبدي قبر عن اسكف عنين أو وذا سعون شرني أي وحي يقري سئين لقبه وذا صعد دير كذب وحنا دحمري جوجل داف ماشنا وحي هيد سعودية أنا جمركي وحنا آذي مريكن كأو أن هذا حاس يعرف كل هاي متكدب يدي أي إسوا عذي يقولنا ورجلس إني أور قادي هبينكي باشالك وحنكو يري الرمهاس هيجرا هذلين أور كان أنا جمله وحن سكننا حي هذا وحا إسوا عذي جبر تضبي تبنشرة أوله أبهي باتهاي هدي أن وريستين دتك وحي يقول لهذين جبر دوا أديجا أو كوبيا معناها ويكون اكتهاي مركز شيخو محان سمية مديجان كقادا مانيجا دلي ما دام أن مهر شيرين أو أي خلط أن سمي يقول لطي دم بيجاس إنتو جارسين يهاي سيدنا سوقت توبت ولا إمادة قاب كيسة ولا دقمة قبرداس. سؤال شان وحنا نقص وقابي قولك ونون فوقه. وأفوين كان هذا كهل لأن الزنا دو أيلاد. شرعه وروحه كفوا هذا هذا يتراهد. oo laga fogaan waayo dhibaatooyin noocan oo kale ta dhacay jawaabtu su'aashu waxa weeye gabadha sidoo sheegay ninku haweenta markii ay kulmayeen oo ay xaraan iyo zina ku kulmayeen nin kala qabay soo saasma طيب ilmahaas meeshaas ay haweentaasi dhashay ninkii qabay baa iska leh laana nabigu wuxuu yiri alwaladu lilfiraash ilmaha dhashay haweenta la qabana ay dhashay ninkii qabay ee ay gogosha u ahayd baa ilmaha iska leh walil aahir alhajar ninka zaaniga ana dhagax bulay halaga wada ya bimaana ama hal qadiyo waay wax ilmaha meesha uma yaal ama mehe dhagax baa lagu dilo waay oo la garaaco si loo fasiro marka ilmaha gogosha ku dhashay ninkii baa iska leh waase haduu ka suuroobi karo way haduu ka suuroobi karo maxaan ka wadnaa bimaana markii curfigi caadada la fiiriyo hadii ilmahan uu dhali karo oo mesela nin reerkiisii la joogo la nool waqtiyada is arkeen waqti ku dhow ay is arkeen nin muddo dheer xaaskiisa ka maqnaa 4 sano ka maqnaa haday ilmo keento kama suuroobi karo Soomaa marka waa inuu ka suuroobi karo haduu ka suuroobi karaba ilmahan gogosha iska leh waa kow waa mid labaad ninku hadiiba la yiraahdaba ilmahani biyihiisi baa laga abuuray waana ilma zino abtirkiisa ma qaadanayaan bijmaac ulama isaga abtirka waxa lagu qaataa inaad meher ku dhalato Soomaa iyo xuquuqda aabanimo ilmuhu wuxuu ku qaataa inuu meher ku dhasho meher ku dhalanin sidaas daraadeed ilmaha zinada hooyadii buu ku abtirsadaa waa ina heblaad ee ina hebel ma hooyadii bay isdhaxli abtiyaashi xaqoodu aadi hooyadii waxay dhasho walaalay noqonayaan laakiin ninkan orgiga ah meesha wax ku daadiyay isagu tag tii laga lulay baa laga lulay saas daraadeed waxay tilmaamaysaa dumarku inay aad uga taxadaraan iyadoo zinata hadana tabiicaadka iyaga raacay waa ka baday ninkan waxoogaagisa intuu kuleelka iska daadiyay garaac dhaqaaqay hawshu iyaga ku hadhay ayada marka loogu abtirin oo ilmuhu xaq u aadaya tan waa qodob wabitaali uma baahna mar haday sidaas tahay uma baahna inaad dhiig ka qaato uma baahna inaad DNA ka qaato ilma aad og tahay ba inuu zina yahay DNA iyo koobi anu iyagi iyo koobigaagi way qaabka wax lagu ma sugo shariicaduna abtir iyo nasab kuma sugto gabadhaasi hooyadeed baa dhashay ninkii gogosha lahaa baa dhalay haduu diidayo inkirayana waa inuu li'aan sameeyo waa kii gogosha lahaa gogoshiisa ay ku dhalatay haduu leeyahay anigu ma dhalin kaasi li'aan buu sameeyay ilmaha uu iska anfinaya haduu li'aan tami waayo ilmuhu nasabkiisa iyo abtirkiisa u qaadanaya isaga dhalay kan Soomaaha asagu ilmaha shaqo isku meeyla
maxaan sameeyaa haddaad uun lilaahi isaga caawinayso lilaahi haddaad uun ruux bini aadan oo uun dhiban uun aad muxuu u caawinaysa meesheeda waaye laakiin wax kaloo idinka dhexeeyay ma uu jiro maxaan sameeyaa dembi weyn baad gashay toobad keen laba dembi baad gashay ka horta inaad zinaysatay waa faaxisho mar labaadna nin gogoshiisa walaalka oo muslima inaad wasakhaysayna waa dembi labaad sooma oo xataa qaab uu kaaga cafin karo aanan garanaynin hadda ilaan xaq bini aadan sooma gogosha nin baa lahaa gurigiisa waad wasakhaysay haddaad gurigiisa iyo gogoshiisa wasakhaysay sida saxdaa waxay ahayd intaad noosha inaad u tagto tiraadi cafi laakiin adiga miyaad tegi kartaa dhigi kartaa nin miyaad ku dhigi kartaa reerkaagiiba ya reerkaagii baan ku khaldamayno iskagii cafi miyaad dhigi kartaa hawshaasi waa hawlun aakhara jirta waa xuquuq ilaahay xaggiisa jirta waxaase kula gudboon inaad towbad keento oo si dhaba ilaahay ugu soo noqoto tabaaraka wa tacaala wixii meesha ka dhashay iyo ilmahaasna xukunkiisu waa sidaas wabillahi tawfiiq sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam